aqoonyahanka qaarna iyagoo bini aadamka qiimaynayay waxay dejiyeen marka hore kriteeriya wax lagu qiimeeyo yacni qofka bini aadamka aynu odhan karno waa qaa'id ama waa hogaamiye ama waa mudan yahay waa qofka maxay qabtabay marka hore isweydiiyeen dabeetana kriteeriyay qoreen qofku waa inuu sifada iyo sifada iyo sifada iyo sifada yeeshaa markay kriteeriyada dhammeeyeen kadib ayay waxay yidhahdeen bini aadamka aan ku tabaqna haddaba yaa leh sifooyinkaa inta kriteeriyada qortay aan wax ka soo qaadaya dhammaantood waxay tilmaamayaan nebi moxamed inuu yahay kuwa ugu mudane kriteeriyada bini aadamka lagu qiimayn kara wata aan dhowr qof markaa soo qaado waxaan idiin soo qaadi doonaa lamartine alfonso lamartine iyo messerman julius messerman iyo michael hart iyo professor ro krishna waa afar dunida ka kala tirsan mid waa hindi midna waa yahuudi maraykan iyo reer yurub waa dad kala gedisan waxay isweydiiyeen marka koowaad bini aadamka maxaa lagu qiimeeyaa marka la qiimaynayo la maamusayo laleeyahay qofkani waa haliyey maxaa lagu qiimeeyaa cumuuman bini aadamku wuxuu yidhaahdaa saddex shay baa wax lagu qiimeeyaa ama alcadama weynida bay leeyihin qof leeyahay saddex shay baa lagu qiimayn karaa kow biاطibaaci wاlakhlaaqi wاlmazaaya shakhsiya waxaa lagu qiimayn karaa bay leeyihin sifaadka bini aadamnimo ee waa geesi waa deeqsi waa caynka yacni sifaadka qofka bini aadamka insaaniyadu ay leedahay waa lagu qiimayn karaa bay yidhaahdaan waxaa kaloo bini aadamka lagu qiimeeyaa bay yidhaahdaan injaasaadka alacmaal alcadiima waxqabadka ummad buu badbaadiyey waxaasuu qabtay waxaasuu keenay waxqabadkiisa waa lagu qiimayn karaa waxa saddexaad ee bini aadamka lagu qiimeeyaa waxa weeyaan bay yidhahdeen raadka uu bini aadamnimada kaga tegey intee qarni buu raadeeyey ma bulshadii uu la noolaa iyo qarnigii uu noolaayo qura qof raadayn kule buu ahaa mise taariikhda bini aadamka ee soo jireenka aan qof ku leh raadayn waa aahaar waa saddex qaybood oo wax loo qiimayn kara bay leeyihin in dhaqanka iyo akhlaaqda iyo miisaadka insaaniga lagu qiimeeyo in waxqabadka iyo acmaasha ka soo fushay lagu qiimeeyo iyo in raadku bini aadamnimada kaga tegey lagu qiimeeyo saddexda kaad ku qiimaysa bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one waxay yidhahdaan cadamada marka la qiimaynayo dadka badh qoom buu weynida u yahay laakiin waxaa laga yaabaa qadarka uu kuwan wax u taray kuwo kalena inuu dhibay maalan dagaalyahannada nin baa dagaalyahannimo lagu qiimeeyey dee qoomkiisa wuu u guuleeyey laakiin qaar kale uu jebiyey baa jira bini aadamka o dhan wax ma wada tarine qaarna wuu u hiiliyey qaarna wuu ka hiiliyey waxaa jira bay dhahaan bini aadamnimada marka la qiimaynayo inay maxalli tahay raadayntiisa ama waxqabadkiisu inuu gobol ku kooban yahay qowmiyad min alqowmiyat inuu wax taray iyo inay tahay international adduunka o dhan inuu wax taray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin biayi miqyaas aad wax ku qiimayso bashariyada dhammaanteed buu wax taray sida awgeed haddii akhlaaq iyo dhaqan la rabo bay leeyihin waa qof taariikhdu ay tilmaamayso inuu mutawaadic ahaa oo geesi ahaa dagaalyahan ahaa wax bixin jiray dulqaad badnaa sabir badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu tilmaamoo dhan saadiq ahaa iyo runsheeg badnaa ballan oofin badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu maamuusa bay leeyihin waa looga markhaati inuu lahaa hadday tahay raadayn waxay leeyihin caalamka ilaa maantay taallaa raadayntiisii oo wakhtigu nebi moxamed yimi calayhi salaatu wasalaam wakhti aan laa xuquuqulinsaan walaa xuquuqulbini aadam walaa wax jira aanay jirin bay ahayd markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwidaac uu tilmaamayey bini aadamka iyo maamusnimadiisa iyo xurmada uu leeyahy aahaartu ka tegey bay leeyihin waa ta abuurtay xadaaradan dee islaamigaa dhammaanteed iyo dadka muslimiin ee dunida soo jiroo dhan
sidaa awgeed ay miqyaas wax lagu qiimeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one. walidaalik baa waxa uu qoray will durant waxaan filayaa inuu yahay laa adri agnostic, yacni kuwan aan diimahaba rumaysanayn. atheist maaha, waa agnostic, waa laa adri, yacni inuu jiro iyo inaanu jirin ma kala ogi, anigu wax ma ogi baa la yidhaahdaa. kaasi agnostiga ahi wuxuu leeyahay laba kitaabo waaweyn oo caano mid waliba dhowr iyo 10 volume yahay. mid waa story of civilization, taarikh alxadaara alinsaniya, midna waa story of philosophy, taarikh alfalsafa. waa laba kitaabo volumes ah. kitaabkiisan la yidhaahdo taarikh alxadaara ama story of civilization marka uu ka warramayo taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa وإذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمداً كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروح والأخلاق للشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانيه فيه أي مصلح آخر في التاريخ. وحوليه haddaynu weyni ka warranna iyo qof bini aadama weynidii oo aynu ku qiimayno raadka uu bini aadamka kaga tegey, nebi moxamed wuxuu yahay buu leeyahay kaana acdamu cudamaa'i taariikh. dadka ugu waaweynee taariikhda la tilmaamo kooda ugu sii weyn weeyaan buu leeyahay. dadka ugu waaweyn cudamaa'i taariikh markaynu meel isla dhigno cudamadoodu cadiimkooda yahay ayuu ka ugu weyn yahay buu tilmaamaya. waayo buu yidhi shacab ku nool dhul kulul oo aan wax dhaqana wadanin, carabtii jaahiliyadu tilmaamaya, ayuu intuu noloshaa ka saaray wuxuu gaadhsiiyey buu leeyahay nolol bini aadamku tuu ku rayreeyo nololaha ugu sarreeya ka mida buu gaadhsiiyey. waxaan jeclay inaan u soo noqdo dadyawa kale wararkooda, laakiin bal nimankii kriteeriyada qaatay aan iyaga warkooda horraysiiyo. waxa uu yidhi michael head aan soo qaato mar koowaad. michael head waa nin maraykan ah, asal ahaan yuhuudiya, naaso researcher ka ahaan jiray, professor of physics ahaan jiray, jaamacaadka takhasusaad badan leh, waa maths, waa physics, waa astrophysics, waa computer science iyo law. shantaas subject ba takhasus buu ku leeyahay, shantaba degree buu ku sitaa. waa professor jaamacadeed. bugaag buu leeyahay ugu caansan yahay buugga la yidhaahdo The 100, boqolka buugga la yidhaahdo. buuggan 100ku waxa uu ku tilmaamayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan, the most influential persons in the history of mankind ayuu tilmaamaya. boqolka qof ee ugu raadaynta badan bini aadamka. waa buug 500,000 copy laga iibiyey, ilaa 15 luqana ku tarjuman. ninkan odaygii markuu masaladan ka warramayo, isagu markuu isa sifaynayo wuxuu isku sifeeyey inuu yahay jeffersonian liberal. jefferson waa madaxdii soo martay maraykanka nin ka mid ah, nin liberal buu isku sifaynaya. laakiin qolada isaga radidaa markay sifaynayaan waxay ku sifaynayaan inuu yahay conservative iyo racial separatist bay leeyihin. waa nin muxaafid oo infisaali cunsuriya bay odhanayaan iyagu. nin yahuudiya oo dadka badh cunsurinimo ku sheegayaan oo maraykan u dhashay oo buug qoraya, oo buugga audience-ku uu qoraya wax ka iibinaya aanay carab ahayn ay yihiin dadka afka ingiriisiga ku hadla, ayaa buug qoray. yacni waa nimaan xidhiidh ka dhaxaynin isagiiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa buug qoray. buugga uu qorayo wuxuu leeyahay waxaan ka warramayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan. 3 shardi baanan u dhigay. shardiga koowaad, qofkani waa inuu qof xaqiiqi yahay buu tilmaamayaa. yacni xaqiiqiga maxaa looga jeedaa? waxay leeyihin taariikhda bini aadamka dad baa iska jira ustuura loo malaynayo
iminka xakiimu siin oo kale lawtso nin la yidhaahdaa jiro Chinese ay xikam ka soo naqliyaan waa sida cigaal shidaadkeennoo kale qof jiray ma aha mise ma ahayn ayay ku muransan yihiin marka wuxuu leeyahay qofku waa inuu horta aanu noqonin dadka aan laba garanaynin qof xaqiiqiyo la garanayo waa inuu yahay